بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. wareegtada ku saabsanayday hakinta howlaha cusub ee dawladda hay-adaheeda kala duwan ay qabanayaan soo saaray muhiimadeedu waxay ahayday in xilligan kala guurka ah ee dalku uu maraya marxaladda xasaasiga ah inaan lagu takrifalin awoodnimada dawladda oo aanay dhicin in loo isticmaalo dawladnimada iyo dhaqankeeda si ku saabsan ama la xiriirta arrimaha doorashooyinka iyo ololaha inaan loo isticmaalin dad badan oo qabi karo ama ku fikiri karo in ay xilligii dawladdu dhammaaday ayaguna fursadooda ay dhammaatay inay ku tacadiyeen hantida iyo maxaanku rahdaye habka dawladnimada waxaan diidaynay in hadda ay dhacda khaladaadkaas iyo ku takrifalkaas awoodda dawladda waxaa kaloon diidaynay xukuumadda ama dawladda soo socotay imaan doonto doorashada ka bacdi inaan hadda caqabada jidka loo sii dhigin oo mashaariic iyo ballanqaadyo iyo heshiisyo iyo qandaraasyo berri aanay ka bixi karin dawladda oo dhib ku noqon doono dawladda dambe imaan doonta inaan hadda wadada loo sii dhigin oo aanan ayadoo markaas weliba u badantahay si shakhsi ah in looga faa'iidaysanayo laakiin aan la eegeyn caqabada ku imaan karta dawladnimada iyo dawladda cusub ee imaan doonta inahaas oo dhan markii aan isku celcelinay waxaa noo soo baxday inay habboon tahay wixii wanaagsanaa ee ummadda soomaaliyeed usoo qabsoomay 4 sano ee lasoo dhaafay in ay meeshooda ku hakistaan oo ay u diyaargaroobaan isbedelka cusub ee imaan doona markuu yimaadana meesha ummadda ay kasii jaan qaado laakiin wixii aan hadda aan la macno tirin ama aanan muxuu ahay lagu cayaarin iyo khatartaas kale inaan dawladnimada gelin marka dhammaan ujeedada isku soo koob waxay ahaaday u hiilin xafiiskaygu iyo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan u hiilinayna dawladnimada iyo dhaqanka suuban ee dawladnimada.